laba muwaadin oo Soomaali ah lagu dilay caasimadda waddankaasi Sweden ee Stockholm sida warkan uu inoogu soo diray wariyaheena Cabdulqaadir Cilmi Ciise Honesti. labada wiil ee dhalinyarada walaalaha ee la dilay ayaa fadhiyay goob maqaayad oo ku taala xaafadda Rinkeby ee magaalada Stockholm halkaas oo kamid ah goobaha dadka Soomaalida ee degan dalkan Sweden ay si weyn isugu yimaadaan. ciidamada booliiska ee magaalada Stockholm oo wax yar kadib soo gaaray goobta ay toogashadani ka dhacday ayaa xiray wadooyinka soo gala xaafadda Rinkeby iyadoo uu hakadna ku yimid isu socodka gaadiidka iyo dadweynaha. booliiska ayaa goobta ka sheegay in raggii falkani geystay dilka ay goobta ka baxsadeen isla markaana ay ka howleeyeen baaritaanka arintani. cadadan dilka ayaa warbaahinta dalkan iyo mujtamaca kala duwan ee ku nool caasimadda Sweden iyo guud ahaan dalka iyo dadka Soomaaliyeed ayaguna ay si weyn u hadalayaan. fiican isku naqaan oo xaafadda kamid ah ay dhaleen dabcan qadarta iska xugmanayd inay labadooda isku meel ku dhintaan laakiin waa arrin xadin leh waana arrimo muddo soo socday in dhalinyarada ajnabiga ah waa arrin murugadeeda leh ilaa iyo xalay ilaa iyo waqtigaan waan soo jeednay ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu samir iyo iimaan u ka siiyo waalidkii ay musiibadani soo gaadhay ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu arrinku intaas ilaahay subxaana wa tacaala noogu ekeysiiyo. odayaashan la qabaa ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa artan iyo ehelkiisa iyo qaraabadiisa inuu tawfiiqa waafajiyo in intaa meesha joogto ducadooda aqbal waa inay u duceeyaan reerkaas waa ka codsanaynaa ilaahay dembigooda dhaafo wiilashaas dhintayna ilaahay jannatul firdaws ha geeyo. midda xigta oo ah adeertuu sheega waaye wallaahi tuma wallaahi waa ku celinaya mar labaad haddeen yacni aanan danteena u midoobin maalin lisaan ku jiraynaa. waalidiintii dhalay labadani marxuum oo goobta ku sugnaa ayaa dareenkoodii waalidnimo siin kari waayay in indhaha ay siiyaan muuqaalka wiilashooda. ma ahan markii ugu horeysay oo wiilal Soomaaliyeed dil loogu geysto qaybo ka mid ah dalkan Sweden ayadoo bishii November ahayd mid ka mid ah magaalo ku taala dalkan Sweden oo lagu magacaabo Örebro lagu dilay wiil Soomaaliyeed. Cabdulqaadir Cilmi Ciise Cabdulqaadir Honesti Universal TV Stockholm. deeq raashin ah ayaa la gaarsiiyey dadka abaartu ay saameysay ee ku nool magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug.